Rami now from the right wing position. It's Rami's cross. Griezmann! Last minute salvation for France. They found a way at last. kulan wacan oo wanaagsan halkani waa Beered Sports Media waxaad ku soo dhawaataan muuqaaladeena ciyaareed oo aan idiin soo gudbino maalin walba 1 2 3 4 go muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa kooxda kubadda cagta Barcelona oo soo gabagabaysay saxiixii Antoine Griezmann marka hore waxaan kuugu baaqayaa inaad subscribe dhahdo channelkeena gambaleelkana aad furato muuqaaladeena aad like saarto wixii talana aad commentiga noogu soo dhiibto asxaabtaadana aad la wadaagto mahadsanid Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa Antoine Griezmann oo ka yimid Atletico Madrid iyadoo weeraryahanka reer France oo qalinka ku duuga heshiis sano ah kadib markii ay Blaugrana bixisay 120 milyan oo euro oo ah lacagihii lagu burburin karay heshiiskiisa ciyaaryahankii hore Real Sociedad ahna ku guuleystaha koobka adduunka 2018 ayaa saxiixay qandaraas uu ku joogayo Camp Nou 5 xil ciyaareed ee soo socota ilaa iyo June 2014 ayuuna baaqi ku ahaan doonaa gegida Camp Nou qandaraaska uu saxiixay Griezmann waxaa lagu burburin karaa 800 milyan oo euro lama shaacin xilliga sida rasmiga ah loo soo bandhigi doono balse Barcelona ayaa muddo ku dhibaatoonaysa saxiix xidigan ugu dambeeyna way soo abjarto xidiga wuxuu si rasmi ah loo cadeeyay inuu ku biiray kooxda kubadda cagta Barcelona haddaan taariikh yar oo xidigan ku saabsan ku siiyo Antoine Griezmann wuxuu ku dhashay magaalada Macon dalka Faransiiska 21 Maarch 1991 Griezmann heerka ciyaaraha sare wuxuu ka soo bilaabay kooxda Real Sociedad 2009 halkaas oo kula guuleystay horyaalka heerka labaad ee dalka Spain laguna magacaabo Segunda Division xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay haddaan ku xasuusiyo waxaan ku sheegayaa Antoine Griezmann heerkiisa ciyaareed ee seniorka wuxuu ka tagay 5 xil ciyaareed kadib markii uu Atletico Madrid ku biiray kuna qaadatay lacag gaaraysa 30 milyan wuxuu kooxda Atletico Madrid ka ambaqaaday qaab ciyaareedkiisii wacnaa waxaana 2014-2015 lagu soo daray La Liga Team of the Year 2016 waxaa loo magacaabay xidiga ugu fiican La Liga isagoo kaalinta saddexaad ka soo galay abaalmarinta Ballon d'Or iyo abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan Yurub wuxuu ka caawiyay Atletico Madrid inay ku guuleysato koobab badan 2017-2018 wuxuu kula guuleystay UEFA Europa League isagoo 2 gool ku lahaa kulankii finaalaha ahaa wuxuu sidoo kale kula guuleystay UEFA Super Cup oo ay ka qaadeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sidoo kale 2014 wuxuu kula guuleystay kooxda Atletico Madrid Super Cup de Spain ugu dambeynse June 2019 wuu isaga soo hayaamay gegida Wanda Metropolitano wuxuuna ku biiray kooxda ku dheeshay gegida Camp Nou dhanka xulka markaan eegnana 27 Febraayo 2014 Griezmann ayaa looga yeeray xulka qaranka Faransiiska uu hogaamiyaha ka yahay tababare Didier Deschamps ciyaar saaxiibtinimo ay wajahayeen Holland taasoo ka dhaceysay Stade de France wuxuuna ku guuleystay inuu u ciyaaro kulankiisa ugu horeeyay ee heerka kooxda koowaad ee Faransiiska 5 Maarch 2014 wuxuu ka mid ahaa xidigihii Faransa matala koobkii adduunka ee lagu qabtay qaaradda Latin America gaar ahaan wadanka Brazil 2016 wuxuu ka mid ahaa xidigihii kooxda Faransiiska ee gaaray kama dambaysta tartanka qaramada qaaradda Yurub inkastoo ay Portugal ku guuleysatay 2018 waxaa looga yeeray safkii koobka adduunka u matalaysa Faransa wuxuuna ahaa furihii xulkaas kuwaas oo hantay koobkii adduunka si walba ha ahaatee Antoine Griezmann ayaa hadda u muuqata inuu galay mustaqbal cusub wuxuuna rajeynayaa inuu meeshaas ka sii ambaqaadi doono qaab ciyaareedkiisa wacan uu ku soo jiray sanadihii u dambeeyay